labada xisbi ee oromada ee OFC hogaamiye Baqala Garba iyo Jawhar Maxamed ay hogaamiyaan iyo dhinaca xisbigiisna moogtay hore u ahaan jiray jabhadda ee haatan xisbiga noqday OLF ayaa haatan baaq wada jira ay soo saareen oo saameynteeda leh waliba dadka oromadana aad markay hadlaan iyagu moogtay waa dadkii ay daba fadhiisanayeen sida ognahay Jawhar Maxamed iyo ka qayb qaatay Baqala Garba mudaharaadyadii xooganaa ee xilka lagaga tuuray TPLF iyo xisbigoodii EPRDF raggii hogaaminayay bay haayeen oromadu wax ka dhageysanaysay oo elafna waa muddo dadkii moogtahay hubka sidii soo dagaalamayay weeyaan labadooduba hadalku weyn oo qiimo weyn leh ay haatan soo saareen haddaba hadalkaasi muxuu yahay waxa ay sheegeen si wada jir ugu baaqeen dadka oromado in ay hubkooda qaataan oo waxay yiraahdeen ay la dagaalamaan cadowga waxa ay yiraahdeen waxa aanu diidanahay oo ka soo horjeednaa oo cambaarayna bay yiraahdeen xasuuqa lagu hayo dadka oromada waxa ay yiraahdeen oo hadalka ay u dhigeen in haatan jabhadda axmaarada ee faano kumaadka ay geysanayso bay yiraahdeen oromada ay ku hayso aan la aqbali karin dadka oromada ama shacabka oromada waxaan ugu baaqaynaa bay yiraahdeen in gabi ahaanba hubka ay qaataan oo ay iska difaacaan cadowga ku soo duulay bay yiraahdeen waa sida hadalka u dhigeen haddaba falanqeeyaasha geeska Afrika ee arrimaha siyaasadda militariga kuurgala waxa ay sheegayaan baaqan ay soo saareen labadan xisbi in uu noqon doono mid ay markaasi isbedel weyn keena waliba ay dad badan oo oromo ay hubkooda qaadan doonaan dagaalkuna uu sii xoogaysan doono oo waliba uu faraha ka bixi doono waxaana haatan la sheegayaa in ay u tafaxayteen labadan xisbi oo LFC inaguna hore u soo dagaalantay laakiinse OFC ku soo biirtay Baqala Garba hogaamiye xisbigaasi waxa uu sheegay 2 maalmood ka hor inuu taageersan yahay garabkii ka go'ay OLF ee haatan hubaysan ee loo yaqaano OLA kaasi oo uu sheegay inay yihiin mujaahidiinta dhabta buu yiri ee difaacaya oromada waa in la taageeraa buu yiri haddaba OLF haatan way ku soo biirtay sida ognahay OLF iyo OLA markii hore mid bay isku haayeen laakiin markii ay soo dhiibeen OLF-tu garabkii go'ay ee sii dagaalamay weeyaan OLA haatan OLF way ku soo biirtay haddaba waxaana la sheegayaa OLF inay dib ugu noqon doonto doorkii oo dagaalkoogii ay sii wadi doonaan inay xaaladdu u eg tahay waliba dagaalkii Tigreega mid ka daran ayaa la saadaalinayaa inuu ka dhici doono oo haddii aan sida ugu dhaqsaha badan wax looga qaban xaaladda haatan socota dhinaca xukuumadda federaalku ilaa iyo haatan arrimahaasi wali waxba kamay hadal waxba kamay qaban waxaana haatan u tagay booqasho ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Hawaasa halkaasi oo shir weyn oo lagu kulmayo markaasi kulan weyn oo halkaasi uga qabsoomi doona xisbiga talada haya moogtahay barwaaqo iyo waliba hogaamiyayaasha deegaanada ayaa iskugu imanaya oo maalintii qoomiyadaha la leeyahay baan meenayaa shirkaasi oo dhammaan qoomiyadaha iskugu imanayaan madaxdoodu laakiin se tan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo labadii qowmiyadood ee ugu badnaa Itoobiya Axmaar iyo Oromo ay gam iska dhigayaan waxaana la sheegayaa Abiy Ahmed in shirta ku jiro waayo hadduu hadlo moogtahay oo yiraahdo waxba la cambaaraynayo waxa la oranayaa marka wuxuu taageerayaa dad oromadiisii baa leeyahay waayo faano waan ognahay talaabadu ka qaaday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu suutido qabtay qoliyay moogtahay madaxaadka ay oo dhan in haatan jeelasha ku jiraan marka arintan ayaa waxay tahay in masqoorta loo galiyay Abiy oo si iskaga furfura ay adag tahay waana moogtahay mid kamida siyaasadaha haatan Abiy Ahmed oo ku dhaqmay tii ugu khatarsaneed ee la soo hordhigo sidoo uga badbaadana ay aragtay waayo qowmiyadiisii iyo qowmiyadii Axmaarada islaynaya faanoona hore uu la soo dagaalamay haatan haddii uu dagaalka ku soo biiro waxa la oranayaa qowmiyadiisu leexanay durtaba Axmaaradu waxa ay cambaareen kullu jeedinayaan oo soo dhigayaan sawiro ciidamada militariga ee Itoobiya oo ka qayb qaadanaya bay yiraahdeen dagaalka oo waliba Axmaaradii laynayaan biyagu leeyihiin marka iyagoo on Abiy wali hadda aanu talaababa qaadin oo wax aanay kaba hadalba federaalku ayaa la sii eedeynayaa baa la yiri hadlaana waxa weeyaan af salax ku dhagay haddaba waxyaabaha ugu yaabka badan ama ugu qosolka badan baa la oran karaa ee dhacdooyinka la xiriira dagaalkan haatan dhexmaraya Axmaaradii Oromada lagu arkay waxa kamid ah maalmaha aynu ku jirno waxa jira mudaharaadyo waaweyn oo ay dhigayaan shacabka iyo ardayda Oromada kuwaasi oo ay ku cambaaraynayaan xasuuqa lagu hayo beelaha dadka Oromada haddaba waxa ku soo biiray haatan oo qosol leh booliskii moogtahay Oromada ayaa haatan inta iska dhigeen hubkoodii
hubkii moogta ay siteen ayaa waxay qaateen boodhadh ay markaas iyaguna ku cambaareynayaan xasuuqa lagu hayo oromada waxaanay dad badan isweydiinayaan iyagii baaba hubaysan oo moogtay booliskii hubaysnaayeen maxay dagaalka uga qayb qaadan lahayn inay isku difaaci laayeen moogtahay dad badan ayaa haatan aad ugu qoslay waxaana noqotay waxyaabaha yaab kale ee lagu arkay dagaalkan in booliskii hubaysnaa ee markaas oromadu hubkiis ka dhigeen ay haatan boodhadh waaweyn qaateen oo ay leeyihiin xasuuqa lagu hayo oromada waanu cambaareynayna shicibkii iyo ardaydii istriidyada marayay ee mudaharaadayay ayay haatan dhinaca kaga darsameen oo moogtahay dhinaca ka raaceen waxaana noqotay markaa dhacdada ugu yaabka badan ee haatan la hadal hayo taasi oo ama kaag noqotay ama ammaankoogii dowlad ahaaneed in iskaga sugnaadaan bay ahayd baa la leeyahay siday falanqeeya sheegayaan ama moogtahay inay dagaalka ka qayb qaataan labada wax ka dhaxeeya ma yahayn baa layidhi marka askari hubaysan ayaa haatan mudaharaadaya dhacdo Afrika ku cusub bay noqotay baynaan arag moogtahay Afrika boolis hubaysan oo markaas mudaharaad boodhar taagaya oo yani waliba dagaal socda ay leeyihiin dagaalkaasi la joojiyo dhinac bay kaga darsami jireen moogtahay haddaba dhinaca kale dagaal xoogan oo aan waxba la iskula hadhin ayaa haatan waxa uu ka dhex socda oo uu dhex maraya qowmiyadaha axmaar iyo oromada kuwaasi oo ku dagaalamaya deegaanada ay wada degaan ee gobolada Walaga iyo markaasi North Shore ama waqooyiga Shore waxaana haatan la sheegayaa dagaalku in uu sii xoogaystay dhimashada ayaa haatan tirabeel noqotay waxaana la sheegayaa in kumanaan kun in ka badan 5,000 oo qof ayaa haatan la sheegaya in dagaalkaasi lagu dilay dhaawacna tirabeel u yahay meydka ayaa la sheegay meel walba inuu waran yahay haddaba wararku waxa ay sheegayaan oo inta badan dusha looga saaraya inay gumaadkan geysanayaan qowmiyadda axmaarada maleeshiyaadkooga faano kuwaasi oo la sheegaya haatan in ay iyagu safka hore kaga jiraan dagaalka oo shicibkii oromada ay gam ka dhigeen haddaba waxa haatan ka hadlay arinkaasi oo dagaalka ka socda oromada ee moogtahay axmaaradu dhex maraya haatan la sheegay in la xasuuqay dadkii oromada dhinaca Tigreega TPLF ayaa ka hadashay oo markii koobaad noqotay qowmiyadda keliyata ka baxsan labada kooxood ee dagaalamaya ee si kulul uga hadasha dagaal afhayeenka Tigreega ama TPLF ninka loo yaqaan Getachew Reda ayaa si kulul u cambaareeyay dagaalkaasi waxaanu sheegay haatan inay tahay waxaan la aqbali karin in shicibka oromada la xasuuqo oo markaasi iyadoo la adeegsanayo wuxuu yiri hubkii dawladda oo markaa waliba wasiiro ka tirsan dawladda Itoobiya federaalku ay abaabulayaan buuri dagaalka oo ay doonayaan in shicibkaasi la xasuuqo aan hubaysnayn uu sheegay in dagaalkii wuxuu yiri Tigreega lagu hayay xasuuqii lagu hayay ayaa haatan loo raray buu yiri dhinaca oromada waxaana la doonayaa in la cirib tiro buu yiri oo deegaano badan laga tirtiro dadka oromada waxa uu markaasi si dadban u dhaleeceeyay oo markaasi uu aad gaashaanka ugu dhuftay dhinaca qowmiyadda axmaarada oo sheegay markaa inay yihiin kuwa madax ilaa mijo dhammaan xubnaha ka tirsan dawladdu ay abaabulayaan dagaalkaasi ka dhanka marka dadka oromada haddaba Getachew Reda waxa uu sheegay oo uu haatan ku dhawaaqay in ay TPLF ama Tigreegu garab taagan yihiin dadka oromada oo ay u damqanayaan waxaanu sheegay oo dhinaca kale uu hoosta ka xariiqay in Itoobiya gabi ahaanba haatan dusha ay ka maamulato Eritrea waxa uu yiri dawladda dhan ee Itoobiya haatan gumaadka iyo xasuuqa socda ee lagu hayo shicibka oromada waxba kama qaban karto waayo wuxuu yiri Itoobiya oo dhan waxa laga soo amraa Eritrea amarkuna Eritrea ayuu ka soo baxaa talaabo kasto ciidanka Itoobiya ay qaadayaan Eritrea maamusho buu waa sidoo hadalka u dhigaya haddaba waxa uu sheegay in dadka oromada in markaa xasuuqa laga joojiyo oo markaa kuwa dawladda ka tirsan Itoobiya ee ku doodaya in la gumaado dadka shicibka aan hubaysnayn ay yihiin wax ma garata buu yiri